shacabweynaha reer Ghana ayaa maanta oo Jimcaha u dareeraya goobaha codbixinta ee wadankaasi iyagoo u codayn doona madaxweyne iyo baarlamaan cusub oo dalkaasi uu yeesho. kumanaan shacabka reer Ghana ayaa aroornimadii saaka lagu arkayay goobaha laga codbixiyo ee ku yaala caasimadda wadankaasi ee Accra. doorashada ayaa waxaa ka qayb qaadanaya xisbiyo kala gedisan balse tartanka ugu weyn ayaa wuxuu dhex mari doonaa labada xisbi ee wadankaasi ugu weyn ee National Democratic Congress NDC iyo New Patriotic Party NPP. madaxweynaha Ghana John Dramani Mahama ayaa hogaaminaya xisbigiisa NDC halka ninka la loolamaya Mr Nana Akufo-Addo uu hogaaminayo xisbiga NPP. labada xisbi ayaa si weyn ugu loolamay doorashadii ugu dambeysay ee dalkaasi ka dhacday sanadii 2008 xilligaasi oo xisbiga NDC uu ku guuleystay doorashada madaxtinimada ee wadankaasi. Nana Akufo-Addo 68 jir ah isla markaana hogaaminaya xisbiga mucaaradka NPP ayaa sheegay in xilligan iyaga doorashada ay raaci doonto. madaxweyne John Dramani oo 54 jir ah ayaa isagu xilka aan ku iman doorasho wuxuuna xilka qabtay bishii July ee sanadkan kadib markii uu geeriyooday madaxweynihii hore ee dalkaasi John Atta Mills oo in muddo ah xanuunsanayay. madaxweyne Dramani ayaa ku tashanaya taageerada xisbigiisa uu haysto isagoo rajo fiican ka muujiyay inuu mar kale hoggaanka dalka dib u qabto. wadanka Ghana oo ku yaala galbeedka qaaradda Afrika waxay ka mid tahay wadamada Afrika ugu horqaatay xorriyadda waxayna xorriyadda ka qaadatay gumeystigii Ingiriiska bishii March sanadkii 1957. sidoo kale Ghana waxay ka mid tahay wadamada ugu degan qaaradda Afrika dhanka siyaasadda iyo dhaqaalaha. wuxuuna wadankaasi sanadkii 2010 markii ugu horeysay bilaabay soo saaridda shidaalka oo lagu wado inay sii xoojiso dhaqaalaha wadankaasi. wadanka Ghana ayaa sidoo kale soo saara dhoofinna ku sameeya dahabka. shacabka reer Ghana oo tiradooda lagu qiyaaso 24 milyan ayaa la sheegay inay horumar weyn ka gaareen la dagaalanka musuqmaasuqa la dagay qaaradda Afrika. shacabka reer Ghana ayaa isla maanta dooran doona baarlamaanka cusub ee wadankaasi oo ka kooban 275 kursi. waxaa sidoo kale la filayaa in labada xisbi ee wadankaasi ee NDC iyo NPP ay helaan kuraasta ugu badan ee golaha wakiilada wadankaasi. Saciid Muuse Daahir, TV-ga Universal, caasimadda wadanka Zambia ee Lusaka.